kooxda haysata horyaalka Manchester City ayaa bilaabaysa dalabkoodii ku aadanaa hanashada horyaalka shanaad ee Premier League oo xiriira iyagoo galabta Stamford Bridge kula ciyaari doona Chelsea. kooxda Pep Guardiola ayaa xilli ciyaaroodkoodii ku bilaabatay qaab ciyaareed wanaagsan iyagoo ka badiyay kooxda ay xifaaltamaan ee Manchester United kulan ka tirsanaa Community Shield. inkastoo ay tan iyo markaasi lumiyeen Oscar Bob oo dhaawac ah isla markaana ay soo gabagabeeyeen iibinta Julian Alvarez ee Atletico Madrid. inkastoo ay tayo ahaan iyo tiro ahaanba aad u gaaban yihiin, laakiin kulankani waxa uu imanayaa ka hor inta aanu Guardiola fursad u helin inuu kooxdiisa xoojiyo. Chelsea maamulaha cusub ee Enzo Maresca waxa ay u badan tahay inuu doorbidi lahaa koox ka sahlan ciyaartiisii ugu horeysay ee tartan rasmi ah, laakiin waxa ay fursad fiican u tahay Talyaaniga inuu tijaabiyo kooxdiisa isagoo xagaagii ku daray Pedro Neto. City waxay jeclaan lahayd inay si xoogan ku bilowdo daafacashada horyaalka galbeedka London, laakiin Guardiola ayaa qirtay arrimaha jirdhiska inay caqabad ku noqon karaan isbuuca furitaanka. Foden, Stone iyo Walker ayaana si buuxda taam u ahayn kadib markii ay ku soo noqdeen tababarka bartamaha isbuuca kadib fasaxooda, waana waa inaysan diyaar u noqon doonin 90 daqiiqo laga yaabee 15 daqiiqo. Guardiola ayaana yiri waxa muhiimka ah ayaa ah in qof walba uu soo laabtay marka laga reebo Oscar Bob, inta kale waa okay.